نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. waxa ay noo bilaabmaya wacdigii sheekhu inoo soo diyaariyay sheekh Cabdillaahi Xasan Xaasin, sheekh Cabdillaahi Barbaraawi, ilaahay isagana ha xafido, inagana ha inagu anfaco waanada iyo wacdigu inoo soo jeedinayo. wacdiga iyo waanada uu inoo jeedinayo sheekha ciwaankeedu waxa weeyaan kayfa takunu min cibaadillaahi saalihiin, sidee baad uga mid noqon kartaa adoomada ilaahay ee wanaagsan, sidee baad uga mid noqon kartaa. marka aynu si fiican u dhageysano kuna dadaalna wixii noo sheego inaynu dhaqan gelino. waxaan leeyahay sheekha falyatafaddal mashkuuran ma'juura. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin, ثuma asalaatu wasalaamu calaa cabdillaahi warasuulih muxamadi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى وقتigan kooban ee labada salaadood u dhaxeeya waxaynu waxoogay isku waanin doonaa oo in isxusuusin doonaa muhiimadda qofka bani aadamka ay u leedahay adduun iyo aakhiraba inuu naftiisa hagaajiyo oo uu ka mid noqdo addoomaha ilaahay ee wanaagsan. qofka marka la leeyahay waa saalix, waa qof wanaagsan, macnaha looga jeedaa wuxuu noqonayaa marka kitaabka iyo sunnaha nebiga la eego annahu insaanun axsana cilaaqatahu maca allah, waa qof wanaajiyey xidhiidhka uu ilaahay subxaana wa tacaala la leeyahay biaadaa'i maa amarahu allah wa biijtinaabi maa naha allahu canh. wuxuu ku wanaajiyey xidhiidhka isaga iyo ilaahay u dhaxeeya inuu gutay oo uu la yimi wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray, inuu ka fogaado naftiisa uu ka dheereeyey wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday, inuu guday xaqii ilaahay subxaana wa tacaala iyo xaqii ilaahay khalqiga kale uu u saaray, inuu yahay addoon korkiisa oo intiisa muuqata iyo kalkiisa oo qalbigiisa intaba hagaajiyey. markaasuu addoon uu ka mid noqonayaa min cibaadi illaahi saalixiin, addoomaha ilaahay ee wanaagsan. addoomaha ilaahay ee wanaagsani waxay leeyihiin sifooyin iyo tilmaamo ay tahay qofka muslimkaahi inuu barto si uu naftiisa sifaadka iyo tilmaamaha ugu yeelo, si uu u galo liiskooda uguna guulaysto waxa ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday, si dadka sifaadkaa le uu ugu daydo oo tusaale uu uga dhigto uu hiigsanayo. sifaadka addoomaha ilaahay ee wanaagsan waxa ugu horeeya uguna weyn altawxiid alkhaalisu lilaahi rabbi alcaalamiin, inay yihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala keliyeeya oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu la gaarka yahay cid kale aan waxba uga ogolaan, xuquuqda ilaahayna guda iyadoo xuquuqdaasi ah mid ay u gaar yeelayaan kuna koobayaan allah subxaana wa tacaala kelidii leh. haddii la soo ururiyo hum man xaqaquu macna laa ilaaha ila allah fii quluubihim wa acmaalihim wa aqwaalihim, waa kuwa laa ilaaha ila allah macnaheeda ka dhab sheegay ee xaqiijiyey, ee ku xaqiijiyey qalbiyadooda, qalbigooda tawxiid u camiray, carabadoodana ku xaqiijiyey waxaan tawxiid ahayn aan ku dhawaaqahayn, camalkoodana keliyeynta ilaahay ay ka muuqatay. oo wax allaaliyo waxay sameeyaan oo ah min acmaali alaakhira wamaa yutaqarabu bihi ila allah yacmaluunahu mukhlisiin, wax kastoo ka mida camallada aakhiro ee ilaahay loogu dhowaado waxay samaynayaan iyagoo ilaahay u gaar yeelaya. sifaadkooda waxaa ka mid ah alkhawfu min allah, inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqaan. baqaha ilaahay ay ka baqayaanna wuxuu ka dhashay weynaynta ilaahay ee qalbiyadooda ku jirta. waman carafa cadamata allah khaafa allah,
qofka ilaahay weynidiisa si dhaba u gartaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka baqaya. baqaha ilaahay laga baqaa waa ka duwan yahay ka laga baqo makhluuqaadka aada is leedahay way ka awood badan yihiin oo dhibaatay kuu geysan doonaan. waxaynu ogsoonnahay makhluuqa haddii laga baqo waa laga cararaa, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala qofka ka baqaa xaggiisu u cararaa. sida ilaahay u yihi fafiruu ila allah, waxay ka baqanayaan ilaahay subxaana wa tacaala baqe u sababa inay khaladka iyo dembiga ka toobad keenaan, marka horebana ka celiya xagga ilaahay inay u cararaanna keensada. waxaa ka mid a sifaadka addoomaha ilaahay ee wanaagsan altawbatu alcaajila wa kahratu alinaaba walistikfaar, toobadkeen degdega. inkastoo addoonku addoon ilaah wanaagsan uu yahay, haddana khaladka lagama dhowrin oo lagama ilaalin. waa u bandhigan yahay oo bani aadam buu u yahay. laakiin addoomaha ilaahay ee wanaagsani marka ay dembaabaan sifay leeyihiin ay kaga duwan yihiin kuwa kale. sifadaasi oo ah si degdega inay u toobad keenaan oo ilaahay subxaana wa tacaala quluubtoodu ay ugu soo noqoto, ilaahay inay weydiistaan dembi dhaaf iyo ilaahay inuu asturo. ina aladiina itaqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun. mar allaaliyo marka shaydaanku xumaan uu u qurxiyo ee uu simbiririxiyo, markiiba ilaahay bay subxaana wa tacaala xusuusanayaan. taasina waxay sabab ugu noqonaysaa inaanay dembigii iyo xumaantii sii wadin, si degdega oo dhaqsaa uga toobad keenaan. sifaadkooda waxaa ka mid a inaanay fadhiisan goobaha xumaanta lagu hayo ee ilaahay lagu caaseeyo, ee ay tagaan majaalis lkhayr, meelaha khayrka iyo wanaagga lagu hayo. goobaha xumaanta lagu sameynaya hadday tagaan, waxay tagaan iyagoo dadka u yeedhaya oo wanaag faraya oo xumaan ka reebaya. waimaa yunsiyannaka ashayطaanu falaa taqcud bacda adikraa maca alqowmi aalimiin. ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaas yidhi. sifaadka addoomaha ilaahay wanaagsan waxaa ka mid a xirsuhum cala adacwati ila allah waalamri bilmacruuf wannahyi can almunkar, inay aada ugu dadaalaan inta awooddooda dadka inay xagga ilaahay ugu yeedhaan oo wanaagga ay faraan oo xumaanta ay ka reebaan, oo cilmiga ay dheer yihiin ay baraan oo ay u sheegaan. sifaadka addoomaha ilaahay wanaagsan waxaa ka mid a altawaaducu lilxaqi waalkhalqi, xaqa inay aqbalaan mar haddii xaqnimadiisu ay u caddaato, dhinacu doonaya ha ka yimaado, min caduwin aw sadiiq, min kabiirin aw sagiir, qof colaadi ka dhaxayso iyo qof ay saaxiib yihiin, qof ka weyniya mid ka yar, mid ka derajo sarreeya mid ka hooseeya. xaqa xaqnimadiisa ay u aqbalaan, iskama kibriyaan. khalqiga ilaahayna sidaasoo kale ma quurhsadaan oo hoos uma eegaan, darajadiisa iyo martabadiisu siday doonaysaba ha noqotee. waa sifadu lahaa nebigeenii moxamed calayhi salaatu wasalaam. sifaadkooda wanaagsan waxaa ka mid ah altawajuhu ila allahi biadducaa. waa kuwa baryada ilaahay ay baryaan aad ay u badan tahay, oo baryadoodu aanay ku koobnayn iyo ducadoodu xaaladaha adagi markay soo waajahaan. yadcuuna allaha fi shiddati waalrakhaa, xaaladda adag iyo xaaladda barwaaqada iyo ladnaanta labadaba ilaahay bay baryaan. waa ambiyadoo dhan bal qur-aanka akhri oo u fiirso. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka sheegayaa ducooyin iyo baryooyin la yaab leh, iyo xaalkoodu inuu ahaa si kastoo xaaladdu ay adkaato inaanay ilaahay ka quusan. mar allaaliyo markay arrini la soo daristana cidda u horraysa ay xusuusanayaan ee baahidooda ay u bandhigayaan inuu ahaa allahu rabu lcaalamiin. sifaadka addoomaha ilaahay wanaagsan waxaa ka mid a cadamu adiyati alaakhariin, cidna ma dhibaan, xaqdarro cidna kuma dhibaan, af iyo adintoona kuma dhibaan. almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih, qofka islaamnimadiisu ay dhammaystiran tahay, shakina kuma jiro qofka hadday islaamnimadiisu dhammaystiranto inuu ku biirayuu ka mid noqonayo addoomaha ilaahay wanaagsan. muslimka ay islaamnimadiisu dhammaystiran tahay
waa ka ay muslimiintu ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa, dhibaatadiisa ay ka badbaadaan, oo xaqdarro aan waxba kaga sheegin, xaqdarro aan dhiigooda ku daadin, xoolahooda aan ku qaadan, si kalena aanu dhibaatayn. sifaadka addoomaha ilaahay wanaagsan waxaa ka mid ah alxilm, dulqaadka, oo ah marka laga cadhaysiiyo inaanay cadhadu hogaamin ee cadhadiisa uu xakameeyo, oo cadhoodku waa cadhooday aanay kalifin inuu xadka ka tallaabo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu caasiyo. waa ka ilaahay ku sifeeyey nebiyullaahi ibraahim inuu ahaa xaliiman. sifaadkooda waxaa ka mid ah alcafu, cidda ku khaldantay iyagoo ka aargoosan kara inay u dhaafaan. ilaahay baa cafiska ammaanay oo ku daray acmaasha wanaagsan ee addoonku uu kaga mid noqonayo addoomaa ilaahay wanaagsan. faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah wa an tacfuu aqrabu litaqwa. inaad cafis samaysaan ayaa u dhow alla ka cabsiga. oo cafiska ilaahay daraaddii ahi addoonka wuxuu u yeelayaa sifatu taqwa ee uu kaga mid noqonaya addoomaa ilaahay wanaagsan. u fiirso nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam, waad ogtay qoomkiisu siday uga hor yimaadeen isagoo xaq u sheegaya, af iyo addinba siday ugu dhibaateeyeen. dhulka ilaahay halkuu u jeclaa inay ka qixiyeen. wuxuu ku soo noqday magaaladii maka isagoo ciidamo badan wata oo gacanta sare isagu leh. maada facala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam? idhabuu fa antum ulaqaa. waa cafiyey qoomkaas, iska taga buu yidhi, kuwa la cafiyo oo la sii daayay baa tihiin. sifaadka addoomaa ilaahay wanaagsan waxaa ka mid ah xirsuhum calaa tarbiyati awlaadihim tarbiyatan saalixa, inay ku dadaalaan ubadkooda inay rabbeeyaan rabbayn fiican, oo bilowga noloshoodaba ilaahay subxana wa tacaala ay ku xidhaan. ilaahay baa hanuunka haya, laakiin iyagu sababta ayay la yimaadaan. hadday tahay ducaay awlaaddooda u duceeyaan, iyo hadday tahay inay diinta ilaahay baraan, inay cibaadada kula dadaalaan, siduu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin. ubadkiina salaada fara iyagoo 7 jira, wadribuuhum calayha wahum abnaau 10. salaad la-aantana ku edbiya 10 jir marka ay gaadhaan. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka oo ah hadalkii ilaahay in badan ayuu ku sheegay qofka bani aadamka guushiisa, noloshiisa wanaagsan, hagaagiisa, inuu helo waxa wanaagsana uu jecel yahay adduuniya aakhiraba, inay tahay mid ku xidhan inuu naftiisa hagaajiyo. ilaahay subxaana wa tacaala addoomaa taa waa amray, oo marka koobaad wuxuu amray si ay u hagaagaan waddada ilahay inay ku toosnaadaan. wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh. marka ay khaldamaan ee ay gafaanna si ay hagaaggii iyo wanaaggii ugu soo noqdaan, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inay toobad keenaan. watuubuu ila اllahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun. ilaahay u toobad keena si aada u liibaantaan oo aada u guulaysataan. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay addoomaha ilaahay ee addoommo wanaagsan ah, qalbigooda iyo intooda muuqataba wanaajiyey, ku wanaajiyey ilaahay raalligelintiisa iyo qaadashada amaradiisa. si guud ilaahay waa u ammaanay. wuxuu uhi faama man khaafa maqaama rabbih wanaha الnafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'wa. qofka ilaahay subxaana wa tacaala xusuusan, yowma alqiyaama indhihiisa uu hor yaallo, ka baqanaya, qalbigiisa ay ku weyn tahay sortaaggu ilaahay hor istaagi doono, ee taasi ay kalifto inuu hagaago oo naftiisa uu ka hor istaago waxa ay doonaysa laakiin aan danta u ahayn, oo ah wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala u diiday. wax qalbiga lagu qabtiyo, wax afka laga yidhaahdo, iyo waxay xubnuhu ku dhaqaaqaan. faina aljannata hiya alma'wa. addoonka sifadaa leh jannada ayaa ah hooygiisa, manaa janna ayuu geli doonaa. mar kale ilaahay isagoo inoogu yeedhaya inaynu ka mid noqonno addoomaa ilaahaye wanaagsan, wuxuu uhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha.
waxaa liibaanay oo guulaystay addoonka naftiisa nadiifiye tahira ee ka nadiifiye noloshiisa oo dhan wax kastoo ilaahay aanu jeclayn oonu ilaahay raalli ka ahayn oo ilaahay ka cadhaysiinaya cadaabka ilaahayna addoonka u sababaya shirki ka soo bilow mid weyn iyo mid yar bidco macaasidoo ah qofku inuu wixii ilaahay ku waajibiye dayaco wixii ilaahay u diiday oo xaaraana inuu sameeyo waxaasoo dhan bay naftooda ka nadiifiyaan oo marka horeba waa uskag iyo waxaan fiicnayn waxa ilaahay uu kuu diiday way iska dhowraan haddii uskagaasi uu ku duulana si dhaqsaabay isaga nadiifiyaan waqad khaba man dasaaha taa ka soo horjeedkeeda waxaa khasaare oo guul daraystay qofka naftiisa guri xundajiya yacnaa xumaan dhex dhiga oo naftiisii aan toosin oon hagaajin oo raalli uga noqda xaaladda xun ee alla caasiga ah ee naftu ay ku sugan tahay ilaahay subxaana wa tacaala si gaarana addoomaha qaarkood ayuu ugu ammaanay inay ahaayeen addoommo ilaahay oo wanaagsan wa adkhalnaahu fii raxmatina inahu min cibaadina asaalixiin nabiy llaahi luut ilaahay wuxuu yihi raxmadda iyadaanu gelinay raxmaddii ilaahay buu ku guulaystay naxariistii ilaahay ayuu ku guulaystay nebi luut maxaa sababu noqday inahu min cibaadina asaalixiin addoomaha ilaahay ee wanaagsan buu ka mid ahaa qalbigooda iyo intooda muuqataba hagaajiyey xaqii ilaahay iyo kii khalqiga labadaba guday qofka muslimka ahi ama bani aadamka ahi hadduu ka mid noqdo addoomaha ilaahay ee wanaagsan arrintaa wuxuu ka helayaa oo uu ka goosanayaa midho aada u fiican adduun iyo aakhiraba midhahaas waxaa ka mid a ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay an yatawallaahu allah inuu ka mid noqdo awliyada ilaahay oo ilaahay awliyadiisa wuxuu ku sifeeyey bisalaax wanaag dushooda ka muuqda iyo mid qalbigooda ku jira alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu kaanuu yattaquun ilaahay wuxuu tilmaamay awliyada ilaahay inaanay la kulmahayn baqo iyo murugo midnaba waayo awliyadu waa muuminiinta mutaqiinta weeyi wa haaulaai hum asaalixuuna min cibaadi illah waa kuwa qalbigooda iimaan u camiro iimaanu ku jiro wixii ilaahay amrayna sameeyey wixii ilaahay u diidana ka dheeraaday hadday khaldamaan oo ay gafaanna si deg dega ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqda mar hadduu ka mid noqdo addoonku awliyada ilaahay wanaaggiisa sababtii uu kaga mid noqdo ilaahay baa ilaalinaya cidda colaadisa ee dhibaataysana ilaahay baa la dagaalamaya man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb waa xadiidu lqudsi waa hadalkii ilaahay qofka colaadiya addoon awliyadeyda ka mid ah waxaan u sheegayaa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala aan ogeysiinayaa inuu xaggayga dagaal kaga imanayo yo awood u leh inuu ilaahay dagaal iskaga celiyo laa axad basharkan iyo makhluuqaadkan ayaanad iska celin karin qaar badan oo ka mid ah maxaad u malaynaysaa allah subxana wa tacaala khaaliqa ah wa huwa yatawalla asaalixiin hada min afcaali illah alatii akhbara biha fi kitaabih inuu ilaahay ka weli dhigtu ilaaliyo ilaahay uu jecel yahay rabbi subxaana wa tacaala uu hiiliyo u nusreeyo addoomaha ilaahay ee saalixiinta waxaa sifaadka ama midhaha qofku hadduu saalix noqdo uu helayu ku guulaysanaya ka mid ah ducaaa almu'miniin fii kulli salaa dad ka mid noqoto addoommada ilaahay ee wanaagsan addoon kasta oo ilaahay salaad u tukadaaba uu kuu ducaynaya wal atixiyaadka dib ugu noqo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin addoonkan tukanaya isagaa ducaysanaya nabadgelyo dushayda ha ahaata buu leeyahy ilaahay nabadgelyaha ka yeelo dusha addoomaha ilaahay saalixiinta ah wa calaa cibaadi illahi asaalixiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaad intaa tidhaahdo waxaad u ducaysay addoon kasta oo saalixa oo samada jooga sida malaa'igtoo kale ama dhulka jooga oo bani aadamkan ka mida ama jinka ka mid a ayaad u ducaysay oo ilaahay subxaana wa tacaala aada u bariday bal ka waran qof makhluuqaadka ilaahay ee tukanaya
salaad kastoo ay tukadaan faral iyo sunnaba ilaa taxiyaadku waa ku jiraaye ay u ducaynayaan guul buu gaadhay baa la odhan karaa addoonkaasi. ducada waxaa ka xigta addoonka an yuslixa nafsahu, inuu naftiisa hagaajiyo addoonku. guusha ay gaadhayaan iyo midhaha ay goosanayaan addoomaha ilaahay ee wanaagsan waxaa ka mida inay jannada galaan oo weliba meel sare ay ka galaan oo ay la kulmaan abaalmarin qiimo badan oo ilaahay u diyaariyey. ilaahay subxaana wa tacaala xadiisulqudsiga wuxuu ku yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar. waxaan u diyaariyey addoomahayga waa cibaadun lilaah, weliba kuwa addoomaha saalixiinta ah xidhiidhka ilaahay ay la leeyihiin wanaajiyey, xaqa ilaahay ka khalqigaba guday. naciim baan u diyaariyey buuhi ilaahay subxana wa tacaala. il aragtay iyo dheg maqashay oo xaqiiqadiisa ku maqashay iyo qalbi siduu yahay ku sawirtay midna aanu jirin. oo naciimka ilaahay ee jannada yaalla ilaahay kuwa ku guulaysta aynugu dareen. si kastoo aada u maqasho iyo si kastoo aada u suuraysato xaqiiqadiisu way ka duwan tahay. xaqiiqadiisa waxaad gaadhaysaa uun maalinta ilaahay haynugu guuleeye kuwa jannada gala aad ka mid noqoto. wuxuu inoo sheegay nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam addoomaha ilaahay oo wanaagsan xataa janaasadooda marka ay dhintaan waa ka si guud rasuulku u sheegay janaasada in lala degdego diyaarinteeda iyo marka la sido xagga xabaalaha lagu sido in lala degdego aan lala luudin oo si gaabisa aan loola socon, iyadoo meydkana dee xurmadiisa la ilaalinayo oo lala ordi maayo la orad keensado meydka inuu dhaco ama inuu luxmo ama inuu kala laalaadsamo lalana gaabin maayo. asricuu biljanaaza buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam. markaasaa rasuulku wuxuu sheegay janaasadaa la sidaa hadday tahay qof wanaagsan janaasadii waxaa loola degdegayaa inay tahay khayr baa sugaya, khayrkaasaa hore loogu geynaya. fain kaanat saalixa fa khayrun tuqadimuunaha ilayh. hadday janaasadaasi tahay qof saalixoo wanaagsan oo addoomaha ilaah wanaagsan ka mida janaasadii khayr baad ula degdegaysaan oo aada u geynaysaan. wain kaanat gayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum. janaasadaasi hadday tahay addoon wanaagsan aan ahayn janaasadii waa shar, waa jaar xun, shar baad degtiina ka dejinaysaan. saasuu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam. addoonka ilaahay oo wanaagsan iska dhaaf naftiise ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggiisa wuxuu ku ilaalinayaa xataa awlaaddiisa. qisadii dhex martay nabiy llaahi muusa wa khadir ilaahay fii suurati lkahf uu kaga warramay gidaarkii uu toosiyey nabiy llaahi khadir. nebi muuse uu yihi qoomkan ayna marti gelin, maxaa kuu geeyey hawshoodiiyo gidaarkooda? waxa uu sheegay sida ilaahay suuraddaa kaga warramay gidaarkaa inay lahaayeen laba inan. wa ama aljidaaru fa kaana ligulaamayni yatiimeyn. laba inan oo agoona baa lahaa, waa yaryariino weli may qaangaadhin. wa kaana taxtahu kanzun lahumaa. waxaa hoostiisa yaallay xoolo badan oo aabbahoodu uga dhintay ama iyagu ay lahaayeen. markaa si aanay xoolahaasi uga khasaarooyin baan uga qabanayay. maxaa sababay inuu ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa u diro hawshiiyo shaqada noocaasa oo awlaaddaa yaryar maalkooda ugu badbaadiyo ugu ilaaliyo? wa kaana abuuhumaa saalixa. aabbahood baa ahaa mid wanaagsan. fa salaaxu lwaalid lahu aharun cadiim fii xifdi illaahi liwaladih. waalidka hagaaggiisa iyo toosnaantiisa iyo wanaaggiisu waa mid raad weyn ku leh inuu ilaahay awlaaddiisa u xifdiyo diin ahaan iyo adduunye ahaan labadaba. bal ilaahay maalkiisu addoonka hagaaggiisa ugu ilaalinaya. nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari iyo aimo kaleba ay wariyeen wuxuu inoo sheegay nin xoolo ka daynsaday oo ka amaahday oo wakhtigii ay ku ballameen waayey markab tegaya magaaladii ninkaasi u deganaa. sida qisada ka muuqatana bad baa udhexaysay. markay saasi dhacday wuxuu sameeyey qori buu soo qaaday isagoo baddii dul taagan oo markab sheedaalinayo bal eegaaya ayaa wuxuu arkay qori
looxii intuu xorday oo uu dalooliyey ayuu lacagtii ku riday ninkaasi uu ku lahaa, waanu ku daboolay, badda ayaanu ku tuuray, iyadoo niyadiisu ay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala deynta sidaasi kaga gudo. waxaa dhacday ninkii kale oo isaguna bal markab soo socdiyo waxaa eegaya oo badda xeeligeeda taagan ayaa arkay qorigaasoo soo caariyey. qorigiibuu xaaba ahaan u qaatay. markuu doonay inuu kala dilaaciyo waxaa ka soo dhacday lacagtii ninkaa uu ku lahaa iyo warqad la socota oo fariini ay ugu qoran tahay. sidaasuu ku qaatay. mar dambe ayay is arkeen. kuma talagelinoo iskama xisaabsan addoonkii ilaahay ee deyntaa iska soo diray deyntii inay ka baxday. wuxuu doonay deyntii inuu siiyo. deyntii sodigii isoo diray buuhi, way soo gaadhay lacagtii iyo fariintiiba. ilaahay subxaana wa tacaala maalkii uu baddaa ku dhex tuuray ilaahay baa badbaadiyey, oo weliba qofkii uu ku waday ilaahay baa gaadhsiiyey. man akhada amwaala annaas yuriidu adaa'aha addaaha allahu canh. qofka xoolaha dadka qaata macnaa amaahda iyadoo niyadiisu ay tahay inuu iska bixiyo, ilaahay baa ka bixinaya. adduunyada intuu joogu ilaahay u fududaynaya inuu gashi baxo. haddii aanay taasi dhicinna si axaadiida qaar oo saxiixa ku soo aroortay, ilaahay baa subxaana wa tacaala aakhire ka bixinaya mar haddaanu wax gaabisa isagu samayn. oo niyadiisu ahayd inuu iska bixiyo, laakiin xoolo uu iskaga bixiye ayuu waayey. markuu dhintayna cidina kamay bixin, ilaahay baa subxana wa tacaala ka bixinaya. walihaada bay culimadu yidhaahdaan xadiidka uu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, nafsu lmu'mini mucallaqatu bidayni. qofka muuminkaa naftiisu waxay u xidhan tahay oo ay uga xidhan tahay wixii ilaahay u diyaariyey deyntii lagu lahaa. waxay yidhaahdaan waa qofka deynta marka horeba inuu iska bixiyo aan niyeysan, amaba se inuu iska bixiyo niyadiisu way ahayd. waxaa soo maro gacantiisa soo galay xoolo uu ku dayn baxo, deyntiina iskamuu bixin, waa kaas. laakiin addoonka niyadiisu ay ahayd inuu dayn baxo, wuxuu ku dayn baxana waayey, xadiidkaa ma soo gelaya bay idhahdaan. waxaanay waxyaabay ku sababeeyaan ka mid a in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhintay, wa dircuhu marhuunun cinda yahuudiyin. iyadoo dayn lagu leeyahy buu dhintay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyadoo dirac dagaalkiisii u rahman yahay daynuu ka qaatay nin yahuudiya. weliba raashin buu rasuulku calayhi salatu wasalaam ka amaahan. haddaad tidhaa muxuu saxaabada uga amaahan waaye, waxay culimmadu yidhahdaan ee yahuudiga u geeyey, waxay yidhaahdaan saxaabadu rasuulka waxba may amaahinahayn, oo hadduu rasuulku dhan waxay amaahiya kama yeelahayna way siinayeenoo qaaday odhanayeen. nebiguna calayhi salaatu wasalaam xoolaha dadka inuu qaato ma jeclayn. sidaasuu ugu tegay yahuudiga xoolihiisa aan siinahayn, laakiin dayn ahaan uu uga qaadan karo. waxaa haddaba isweydiin leh oo muhima, kelmaddan biidni illaahi subxana wa tacaala aan ku gebagabaynayaa, addoonku siduu uga mid noqon karaa addoomaha ilaahay ee wanaagsan? waa inuu yeesho sifaadkiiyo tilmaamihii aynu sheegnay iyo kuwa la midkae ku xusan kitaabka ilaahay iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaana taa gaadhsiin kara oo addoonka u sababi kara awalan inuu ilaahay subxana wa tacaala diintiisa uu barto. waayo sidaynu sheegnay, hagaaggu waa in wixii ilaahay uu ku amray aada samayso. haddaanad garanayn saad u samayn doonta. wixii ilaahay uu kuu diidayna inaad ka fogaato. wuxuu ilaahay kuu diidayba haddaanad garanahayn si aad uga fogaan doonta. maaha macnaheedu dadkao dhami culimo ha wada noqdaan, taasi ma dhici karto. ilaahayna subxaana wa tacaala taa ma qadarin. laakiin macnuhu waxa weeye qofku cilmigii inuu bartaha ku dadaalo, wixii aanu garanahaynna yaanu iskaga dhaqaaqin, yaanu odhanin hadalka aanu garanayn ma xalaalba masoo xaaraan, ficilka aanu garanayn, iibka aanu garanayn xukumkiisa, wixii guur ku saabsan aanu garanahayn, hawlaha kale ee adduunyo mid waliba xukun bay leedahay. yaanu ku dhaqaaqinun ee sida ilaahay uu amray ha weydiiyo culimada. fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. arrinka labaad ee addoonka ku caawin kara inuu ka mid noqdo addoomaha ilaahay ee wanaagsan waa adducaa, allujuu ila allah.
وسؤاله أن يصلح الله نفسه ويزكي قلبه إنه أدونكو awoodiisa iyo xeeladiisa kuma hagaagi karo si kasta u dadaalo haddaanu ilaahay waafajin wadada hagaaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu wanaajin addoonka waa inuu ilaahay ku irkado addoonku oo ilaahay u cuskado sidii naftiisa u hagaajin lahaa taasoo ay ka mid tahay inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala oo mar walba ilaahay u weydiisto inuu hagaajiyo oo ilaahay uu hagaaji ilaahu qalbiga hagaaji ilaahu nafteeda hagaaji waayo qalbigaaga iyo naftaaduba ilaahay bay subxana wa tacaala gacanta ugu jiraan in shaaa aqaamaha hadduu doono ilaahay wuu toosinaya wuu hagaajinaya wa in shaaa azaaqaha ilaahay hadduu doonana wuu luminaya doonista ilaahayna cilmigiisa iyo xikmaddiisa ayay ku dhisantay oo ay ka farcantaa oo ilaahay addoonku khayr ku og yahay ilaahay waa toosinaya ka ilaahay shar uu ku og yahay ilaa addoon walba intaanu abuurin bu ilahay xaalkiisa sii ogaaye ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo minadiisuu kala noqonayaa cadaaladiisuu ilaahay kula dhaqmaya walihaada nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam aynu garanayno inuu ahaa addoomaha ka u hagaagsan u hagaag badan aslaxuu alcibaad cilman wa camalan cilmi ahaan iyo camal ahaanba haddana ducooyinka laga soo wariyey waxaa ka mid ahaa allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha ilaahu naftayda waxaad ku arsaaqdaa taqwa oo addoomaha ilaahay mutaqiinta ilaahu igu dar ee amarka ilaahay fuliya wuxuu ilaahay u diidana ka dheeraada wazakiha ilaahu naftayda tahir oo nadiifi oo toobadkeenka waafaji khaladka iyo gafkana ilaahay oo ka dhaaf cid naftayda hagaajisa ilaahu adaa u khayr badan anta waliyuha o mawlaaha adaa ka nafta ilaaliya oo ciddaanu ilaahay ilaalin waa cidda yacantay oo baylaha adigaa nafta rabbigeeda oo abuuray oo mulkiyoo leh adaa maamula ilaahayow hadduu nebi maxamed saa u ducaysan jiray innagaa uga mudan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inaynu mar walba ku ducaysanno inuu ilaahay subxana wa tacaala ina hanuuniyo oo ilaahay uu ina wanaajiyo oo marka aynu tukanayno aynu dareenno ihdina asiraata almustaqiim wuxuu macnaheedu yahay si qalbigeenna iyo carabkeennu ay isu waafaqaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ducada uu inooga aqbalo oo cilmi wixii naga maqan ilaahay subxaana wa tacaala inoogu keeno barashadiisa inoo sahlo camal saalixa wixii naga maqanna ilaahay inoogu fududeeyo khalad iyo gaf waxaynu leenahayna inaynu ka toobadkeenna ilaahay inoo sahlo arrinka saddexaad ee addoonka ku caawin kara in uu ka mid noqdo addoomaha ilaahay wanaagsan wa an yudiima alcabdu mujaahadata nafs naftu waa doqon danteedana ma taqaan sharkeeduna aada buu u badan yihi nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa wanacuudu bika min shuruuri anfusina ilaahay waxaan kaa magan gelaynaa sharka nafahayaga sharka naftu waa inay khayr kaa fadhiisiso oo mid ka wahsanaya ay kaa dhigto ama xumaan iyo shar inay hore kuugu riixdo oo ay kuu qurxiso nafta maxaa lagaga adkaan karaa sharkeeda in lala dadaalo ayaa lagaga adkaan karaa oo lala jihaado waa cadowga naftaadu waa cadowga kuugu dhow waa caduwun bayna jambayk waa cadow adiga kugu dhex jira oo labadaada jambi u dhaxeeya waa shariikun khaa'in waa midaad shuraako tihiin oo khiyaano badan haddaa ilaahay uu kugu imtixaamo qof khiyaamo badan inaad la shuraakowdo si aad xoolahaaga uga ilaashato maxaad samaysaa soo inaad xisaab la daba taagnaato maaha iyo dadaal nafta haddaad la jihaaddo ood kula jihaaddo inay ilaahay adeecday u hoggaansanto ood kula jihaaddo inaad ka celiso ood xakamaha uga jiiddo waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday ee macsiyo ah shay kuma jiro biidni illahi tacala inaad ka mid noqon doonto addoomaha ilahay wanaagsan waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin waayo taasi waxay kuu furaysaa albaabada iyo waddooyinka khayrka oo dhan kuwa naftooda ilaahay daraaddii ula jihaaday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaa ballana inaan ku hanuunin doono waddooyinka khayrka oo dhan khayr oo dhan buu ilaahay u fududaynaya qofka ilaahay tala saarta ee naftiisana la dadaala
wuxuu marka dambe gaadhayaa maraatibta diinta ta ugu sarraysa oo ah martabatu lixsaan oo ah inuu ilaahay cibaadadiisa wanaajiyo ilaahay u caabudo siduu arkayo kale hadduu taa hoos uga dhacaana inuu ilaahay caabudo mar walba isagoo xusuusan inuu ilaahay subxaana wa tacaala u arkaayo wa ina allaha la maca almuxsiniin darajadaa markuu gaadhana ilaahay baa la jiraaya qofka ilaahay uu la jiraana weligii dayacmi maayo khasaaroobina maayo arrinka afraad ee addoonka ku caawinaya inuu ka mid noqdo addoomaa ilaahay wanaagsan wa muxaasabatu nafs wa tadkiiruhaa biwuquufiha bayna yaday illaah waa inuu naftiisa xisaabiyo oo uu xusuusiyo mar walba inay naftan ilaahay hor istaagi doonto si ay ugu tala gasho waxay ilaahay la hortegayso waxaa nafta laga xisaabinaya u horeeyaana waa faralladii ilaahay uu diray ma samaysay wixii ilaahay uu diiday xaaraanana ma daysa waa raasamaaltaasi sunnayaasha inay naftu samayso waxyaabaha makruuhaadkaana ay ka dheeraataa waa ribxi iyo macaash sidaynu sheegnayna waa midaad shuraaka tihiin oo khiyaamo badan naftu ilaahay baa taa inoo sheegay waltandur nafsu maa qadamat ligad naf waliba ha eegto qiyaamu waa berri berri baa ilaahay la hortegaya yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa berri yani waa wakti aada u dhow waktiga kaaxigaa marka cumriga adduunyada la eego inta tagtiya inta hadhay oo wakti aada u yar weeye qof walbana qiyaamihiisiibaa qiyaamaha weyn ka dhow qof walba marka nafta laga qabto qiyaamihiisii gaarka ahabaa dhacay faqad qaamat qiyaamatu qiyaamihii guudna ma foga qof walba qiyaamihiisuna waa dhow iyo cumriga bani aadamku saynu ognahay aada buu u koobay naf waliba waxay berri u hormarsatay ha eegta macnaheedu waa maxay xisaabtan maxaad haysaa raasamaalkii maxaad ka haysaa maxaa khasaara ah khasaaraad saad uga kaban kartaa maxaad macaash haysaa intaba isweydiiye addoonku berridaa dhow hadduu ku xisaabtamo xusuusnaadana sortaaggu ilaahay hor istaagi doono iyadoo waxaa hareereeya ay yihiin acmaashiisii waxa hortiisa yaallana ay tahay naar cartamaysa oo ciddii ilaahay caasida inay cunto diyaaro ah adduunyadan dhammaanaysaa addoonkaa ka mashquulin mayso aakhirada baaqiga arrinka shanaad ee u dambeeya ee addoonka ku caawin kara inuu ka mid noqdo addoomaa ilaahay wanaagsan waa ikhtiyaar alrafiiq waljaliis asaalix qofka bani aadamkii si kastoo u dadaalo oo ilaahay u tala saarto caawimana u weydiisto kama maarmo dadkan uu ku dhex nool yahay cid wanaagga ku caawisa inuu ka helo inaad addoomaa ilaahay wanaagsan aad ka mid noqoto waxaybaa kugu caawinaya waxaa ka mid ah inaad doorato ciddaad noloshan adduunyada kula rafiiqayso ciddaad la fadhiisanayso ciddaad la sheekaysanayso waayo saaxiibka iyo rafiiqu wuxuu qofka bani aadamkaa ku leeyahay raad aanay cidina dafiri karin waynu ogsoonnahay dad fara badan oo wanaagga iyo toosnaanta aada uga fogaa wuxuu ilaahay sabab uga dhigay inay addoomaha ilaahay wanaagsan ka mid noqdaan cid wanaagsan oo ilaahay uu la kulmiyey oo uu la fadhiistay oo uu la rafiiqay dad badan oo wanaagsanaan jira oo toosnaan jiray sida innaga inoo muuqata inay xumaadaan oo raadkooda dib ay u guraan waxaa sababay cid xun ay la rafiiqeen oo ay la fadhiisteen adigoon dareensanayn ayaa qofka aada la saaxiibtaa uu ku saxbinayaa uu ku gurayaa uu ku jiidayaa hadduu wanaagsan yahna xagga wanaag uu kuu jiidaya waxaad is arkaysaa un adoo isbedelay hadduu xun yahayna xagga xumaanta ayuu kuu jiidaya walihaada baa nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam tala fiican oo qiimo badan uu ina siiyey oo uu yidhi sida abu daawuud iyo aimo kaleba ay wariyeen almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qof waliba wuxuu la diiniya la dhaqan noqdaa saaxiibkii ee midkiina ka fiirsado cidduu la saaxiibayo saaxiibka wanaagsan waxaa ka mid a ambiyadii iyo dadkii hore wanaagsanaa waanad la saaxiibi kartaa waxaanad kula saaxiibi kartaa inaad akhrido siiradooda iyo taariikhdooda oo dadkii wanaagsanaa inaad akhrido siiradooda iyo taariikhdoodu raad weyn bay ku leedahay hagaagaaga iyo wanaaggaaga hal qodob haddaan ku daron ku gebagabeeyo oo aan u arkay inuu muhim yahay waxaa ka mid a waxyaabaha addoomaha ilaahay wanaagsan inaad ka mid noqoto kugu caawin kara aliktaaru min dikri illah ilaahay xuskiisa inaad farabadiso subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar
laa xawla walaa quwata ila billah magacyada ilaahay subxaana wa tacaala inaad ilaahay ku ammaanto iyo sifaadkiisa iyo tilmaamaha fiican ilaahay uu leeyahay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi. ninkaasi wuxuu yidhi ya rasuula allah ina sharaa'ica alislaami qad kaurat calay. axkaamtii islaamku way ugu badatay buuli, faral iyo sunnaba marka laysu geeyo. fadullanii calaa shayin atashabbathu bihi, waxaad i tusisaa shay aan ku dhagoon qabsadon cuskado. xadiidka macnihiisu maha sida saxda ah shay aan kaga kaaftoomo acmaasha kale oo kelidii uunaan ku dadaalo, maaha macnu sidaas. wainamaa macna alxadiid dullanii calaa shayin yuciinunii cala alityaan bisharaa'ic alislaam. waxaad i tusisaa arrin igu caawiya oo igu kaalmeeya axkaamta iyo sharaa'icda islaamka, faral iyo sunno inaan sameeyo, xaaraan iyo makruuh inaan ka tago. arrin ii fududeeye rasuulka ilah ii tilmaan. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah. ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato, faral iyo sunnaba? ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato? carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado, yaani kun mukira min dikri illah. waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa. asأl اllah alcadiim rab alcarshi alcadiim an yuciinana jamiica calى islaaxi anfusina waan yakfira lana waliaabaa'ina umahaatina walilmuslimiina wاlmuslimaat. wslى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih وصaxbih wslama tasliima kaiira.